xildhibaan Caydiid Khayr Xaashi oo kamid ahaa xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Sheekh ayaa maanta munaasabadu mar labaad ku shaacinayo inuu u tartamayo doorashooyinka golaha deegaanka ee degmada Sheekh ku qabtay howlka dowladda hoose ee degmada Sheekh waxaana ka soo qayb galay marti sharaf tiro badan oo isugu jira qaybaha kala duwan ee bulshadu ka kooban tahay isla markaana waxay halkaasi hadal uga soo jeediyeen isugu jira taageero iyo dardaaran xildhibaanka iyo haday dadkii kale ee soo saaraba tahay markii hore tacab geliyay ee ku tabcay kainta uu joogo maantana waa lagu celinaynaa tacabkii xulku gurigiisu ku duula gurigiisa ayuu ka duula xildhibaanaduna waxay qurux badan yihiin markay gurigooda ka soo baxaan ee roolkoodu markuu qiyaaso soo maamusho ee soo tilmaamo ee soo asteeyo dowladuna inay ka jirtaa weeye xildhibaan Caydiid Khayr Xaashi isagoo dadkuba la arkayo wixii dharka meeshagooda in kalsooni ummadda reer Sheekh ay ku qabto qoyskooda uu ku qaba sidaa darteed nin tijaabo ah oo يعني أولي يعني تجابة كتيرة هي اللي تجابية ما كانت كتيرة هدي أنا مسؤول هين وأنا وقلبي تهو هروها وتجابه والله كرت تجابه دي شيء يا غير شيء خو ورتلا مرة هذا قفقة هبل بنو دورنا ما هبلايون دورنا waxaan ku dooranaa qofka hab siyaasadeed qofkan xageey yidi geyn kara ama si xageey yidi mari kara qofku dub meedii celin kara si hore meedii mari kara ku dooran karnaa qofka hadii aan ka tagno qolada iyo reer hebel baan ku dooranay tiin hadda hiiliyo hoolba la garab taaganay inaan codsiyo mar labaad iyo mar saddexaadba waan ugu deeqayaa xildhibaan Caydiid Khayr Xaashi oo isaguna munaasabadan hadal dheer ka soo jeediyay ayaa waxa uu ka warbixiyay waxqabadkii muddadii uu xildhibaanka ka ahaa golaha deegaanka ee degmada Sheekh taageerayaasha ku soo biiray ee faraha badan leh ee aan oran karo maanta Sheekh cidiba kama maqnaa ayaan leeyahay soo dhawaada waxaan intii aan ku jiray golaha deegaanka ee degmada Sheekh waxa ay gaarkay u qabsoomay ama fikir ahaan iyo aqoon ahaan baan ku keenay waxa kamid ah maxkamadda degmada aniga keenay ana doonay aniga ana dhisay waxa kamid ah rugta booliska hudisa waxaan hantidaysa bixiyay iskuulka geeraliska ee Muuse Macaliish oo ku fadhiya 4 kilometer square oo aan bixiyay $5,500 waxaana ka iibiyay beenaal markhaatigiisu fogeeyay Saalax Ibrahim Xujaale oo 5,500 baan ku wareejay isaguna dhulkayta kala bixiyay waxaanu ku wareejinay dhulkii gudoomiyaha waxbarashada Maxamed Ibrahim Xaaji Cabdullaahi oo waraaqihiisa naga gudoomay waxaana ahayd meel satara oo loo doonayay in magaaladu dhinac walba ka soo gaadho oo loo xulay waraaqihiisaasaan ku wareejinay iskuulkiina sidaas ku dhismay waxa kale oo aan fikradeeda lahaa ama soo jeedinteeda lahaa ama bilowgeeda aan lahaa jaamacadda gacanta lagu hayo ee degmada Sheekh ku ololeyn maayo ee degmada Sheekh oo dhan waa ka marxaati mid yar iyo mid weyn golaha kala mid ahaa furitaanka cusbitaalka biyaha xabaalaha laamiyada intaas oo dhan waxaan ahaa xubno ugu firfircoonaa ka qayb qaatay inay degmadu yeelato waxaan doonayaa inaan haddaba waxaan isu tuhmay inaan isu soo hortaago ummadda mar labaad iyaga yidhi war waa ku dooranaa meeshaa ka tegi maanta noqdo odayga magaalada waxaanu yidhi waa Cabdirashiid Mubarak Cabdi Cabdirashiid Suul Goobjoog TV